بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين caawa halkan waxaan ku qaadan doonaa cashar degdeg ah kaasoo ku hadlaya PHP form validation loo sameeyo sida tan tusaalahan waxaan ku qoro maxamuud halkan aan ku qoro www.google.com aan ku qoro halkan aan raado waa iga talo iga qaata aan nin baan ahay submit aan raadaan si soo dhiibo halka wuxuu ku qorayaa maxamed baad soo qortay oo last name-kaaga iyo maxamuud website-kaaguna waa ka wixii aad noo soo qortayna waa ka nin baana tahay marka sidaa ugu shaqayn lahayn ayaan rabnaa marka waa code aad u fudud dabcan casharaad badan ayaanu kasoo sameynay PHP dib waad u raaci kartaa waad soo baran kartaa laakiin kani waxa weeyaan waa professionalska oo qaybta professionalka weeyaan PHP takhasuskeedu yahay sida caadiga ahaydna faylka waa save gareysanaynaa halkan waxaan ku save gareysanaynaa form.php aan ku save gareysanaynaa okay sida caadiga ahaydna doctable ayaan furaynaa oo code kasta oo la bilaabo waxa uu asal ah doctable html marka waa css iyo ajax exampleska iyo kuwaas oo dhan waa khasab in lagu bilaabayo doctable html waayo waa united codes weeyaan html baan qoraya marka waa html luqad kastana waxa weeyaan waa html waayo waa links bay leeyihiin sida caadiga ahaydna body ayaan furayaa oo ah farti yahay inta markaan qoro waxa igu xigay waa inaan shaqadii PHP ka bilaabo marka luqadii PHP ayaan furayaa luqada PHP kana sida caadiga ahayd lagu furi jiray waa PHP waad garanaysaa weeyaan inta markaan qoro waxaan leeyahay horta waa define variables weeyaan waayo waan ku xasuusanayaa hadda waxaan qorayaa inaan qoro bal variables kan qoro waayo waxa weeyaan waa istusayaan waayo hadii email marka name waana waxay wax soo saarto yani variableska waa soo qaadanay variableska marka dib inuu tagtay weeyaan variableska waxay noqon karaan $, name horta magaciisa soo qaad si kultu wuxuu la mid yahay iyo emailkii waayahay $, emailkii la mid yahay si kultu hadana wuxuu la mid yahay website-ka la mid yahay waa kuwa ku yaal weeyaan waayo kan ma hadda ma aha qoraalka kan ma aha laakiin waxa weeyaan waa variablekii weeyaan variablekii aan qorayaa website ayaan leeyahay si kultu wuxuu la mid yahay comments hadana weeyaan $, comments ayaan leeyahay oo ah hadaladii la soo dhiibayay oo halka ku yaala oo waxa weeyaan arrow comments ah oo hadhootana u sheegi doono inuu inta ka dhigi doono inta markaan qoro waxa kale oo dhiman website-ka ayaa dhiman si kultu wuxuu la mid yahay website-kan oo la mid yahay website waa soo qornaa filaya sorry ka waa qornay waxa kaliya inaga dhiman waxa weeyaan waa gandarkii weeyaan gandarkii aan qorno weeyaan gandarkii qofka wuxuu yahay aan qorno weeyaan waayo waa khasab waa muhiim weeyaan qofka ruuxa wuxuu yahay qoro inta marka aan qoro waxaan leeyahay marka waayo waxaan oo dhami wax weeyaan wax xidhmayaan ay waxa kaliya lagu xiri karana waxa weeyaan si kultu waxay la mid tahay calaamadii hadalka iyo hadalkii oo sii socda waayo markaas hadalkii oo sii socda sami kolon bala saara inta markaan yiraahdo waxaan leeyahay if ayaan leeyahay ma hadii waan soo qaadanay else-ka iyo waxa weeyaan kuwaas oo dhan waan soo qaadanay weeyaan waa professionalska qaltaas weeyaan waa hore aad fahanto waanaad hore u raacdaa oo soo qirtaa marka sida caadiga ahayd safarkii aan soo marnay daashkii oo farta waa lagu qoraynaa iyo packet-kii oo furayo oo aan u sheegayno waxaanu ka hadlaynaa waxa weeyaan waa request method weeyaan sida caadiga ahayd request dash method weeyaan marka muxuu leeyahay request method-ku markaan qolo waxa weeyaan baan leeyahay sida caadiga waayo waxna wax xaalad baynu ka hadlaynaa xaalad marka laga hadlayana waa in wixii waxa weeyaan wuxuu waa post waxa la yiraahdaa wax kasta inta la soo qoro inta la soo siiyay post la yiraahdaa marka waxaan ka hadlayaa waa post weeyaan sawan u fahantaa marka halkaas ka baxaya kaas shaqadiisii weynaysay halkan labada bracket ee kala furan kan iyo kaas ayaan u imaanaa shaqadiisii waxaan ku qornay shaqadiisii inta maxay tahay marka kaas shaqadiisa waa variableadii weeyaan inaan ku qorno bisoo kaliya variableadu marka maxay la mid noqonayaan aanto document leeyahay name magaciisa la mid noqonayaan name-kii aan soo qornay name-ku marka wuxuu la mid noqonayaa SQL wuxuu la mid noqonayaa jawaabta uu bixinaya waxay tahay test dash input wow meel wax la soo dhigayo weeyaan waa input weeyaan input-kana waxa lagu yaqaan sida caadiga in meel wax la soo dhigayo soo ma labada bracket baan furayaa wuxuu muxuu yahay marka waa post buu la mid yahay aanto baan furayaa waa post baan leeyahay post weeyaan post buu la mid yahay postna wuxuu haduu yahay
وإن وحلا مركب براكت كم شوية وحلمي يحيى مركب ونيم بلمي يعني مقع بلمي يحيى ساسو قادنا يا مركب أنت وكوب جريسنا يا واي وحويان وسلمي ويان تبان لي هي أو كنترول سيت سوري وأي خدمتي وهالكن يانا كتجن وايد سيمي كولوم مش وهذا القصيص ولا ما أنت مركا اللي قمت تجي كل سيمي كولوم نسيس هذا انتربان لي هاي انتربان لي هاي انتربان لي هاي انتربان لي هاي انت مركا عن سوق قبته وان كل قرية سوق الخريان كم وكبدل يا وحلي إيميل ويان كني واي هاي كنا وهالك وحويان وإيميل ويان إيميل ويان كنا وكبدل يا وحكوا حاجة ويب سايت يا كل صناعة ويب سايت يا كل حاجة ويب سايت يا كل حاجة كنا وكبدل يا وحلي ويب سايت يا كل حاجة ويب سايت يا كل حاجة وهي كنا وكبدل يا وحكوا حاجة سجل كمان يا كل حاجة كمان يا كل حاجة كنا وكبدل يا وحلي هاي كمان يا كل حاجة أوكي أنت عمر كان قرأ وحكى لي سؤال ياي وقندر كويان قندر كيان كتير قندر اللي هي كنت اللي هي سبعة قندر ويان كنا كسر قندر أوكي الشقة أسمر كان كسر بحو سامي كلام كيان كتير سامي كلام واي ومهم إن الحوية هذا كل شيء صعود واي الشقة كتير الشقة ده إلا أنت عنك دمان يوغاني أوكي هالكاس وحاكودان لغتي PHP لحي marka maxaan leeyahay waxa la iga baahan yahay in aan qeexo waxa shaqada meesha lagu qabanayo maxaan u baahan imsa shaqo ayaan u baahanahay marka shaqada hadda halkan ka bilaabaya shaqadu waxay tahay leeyahay marka kan bracket waa ku hooseeya filaya oo waa xira marka kan waa khasab waayo hadii kale wax shaqaynaya ma jirto muhiim kana xidho marka waayo waan soo furay marada wax soo furtana waa inaad xidhaa waa khasab weeyaan waayo dii kale wixii meeshii yar badan baa imanaya meeshii waa walanaysa waxa weeyaan inaad xidho weeyaan okay if ayaan iri if ka shaqadii marka waxa ku xigta in aan bilaabo qaybta kale ee coding kana bilaabo shaqada toos u kala marka waxaan leeyahay function waa shaqo shaqadu marka maxay waa test dash input waa wax meel soo dhigayo oo xogtii hadda laga soo qaadanayo si ay ugu noqoto wixii meesha marka bracket kan leeyahay bracketkii marka afro waxaan leeyahay wax noqonaysa waa xogtii noqonaysa xogtu marka imsa xog baa la soo qaadanaya xogta waxaan leeyahay marka waxaan data waxay la mid tahay is equal to trim ayaan leeyahay trim la mid tahay xarig marka wuxuu noqonayaa data noqonaya xogtii wata ka waan doonaya wad leedahay data waxay la mid tahay is equal to waxay la mid tahay strip ay la mid tahay strip caches bay la mid tahay strip wuxuu noqonayaa data noqonayaa kan kale wuxuu noqonayaa data waxaan kale u baahanahay html characters kan u baahanahay html special characters ayaan u baahanahay oo string wuxuu noqonayaa isna data noqonayaa inta markaan qoro waxa kaliya iga dhiman waxa weeyaan inaan markasta u sheego in xogtu ay ku noqonayso data ku noqonayso returns ayaan leeyahay waxay ku noqonaysaa data ayay ku noqonaysaa sami column weyn hadalku sii socdaa kuwana waa ka tagnay sorry markasta waxaa muhiim ah waxa aad qabanayso in aad okay bracketkii waan u furay halkana weyn ku xiraa bracketkii isagana weyn ku xiraa waayo dii kala shaqadii wixii isku dhaxyaacayaan madaxayna isla gelayaan waxa kaliya muhiimka ah waxa weeyaan inay sami column halkana sami column shaqada sii socota way inta markaan qoro halka waxaan kaga baxayaa PHP gebigiisa halkaasaan ku xidhayaa isaga calaamad su'aal PHP halkaasaan ku xidhayaa waxa kaliya ee ii soo hadhayay wuxuu noqon karaa inaan qoro inta tan aan qoro halkan ku harsan marka inta maxaan oranayaa sida caadiga ah HTML baan isticmaalay HTML ka taqaanaan systemka waxa loo isticmaali jiray H1 ayaa loo isticmaali jiray haye PHP form ayaa loo isticmaalaa sida caadiga ahna waxa lagu xiraa H2 waa lagu xiraa ad garanaysaan oo H1 baa lagu xiraa sida caadiga tan baa xidha calaamada ayar baa xidha calaamada meel hadda noocaan aragtana waa furanta waayo HTML ka soo qaadana waad garanaysaan okay inta markaan qoro waxa kaliya hadana la iga baahan yahay waxa weeyaan inaan shaqadii kale PHP ga bilaabo waan soo furtiyo formkii marka form baan leeyahay formku wuxuu leeyahay form lim taastan iska dhiganaya way taadu too baahanayna xidhaan hoostan iska dhiganaya taas wuxuu ku degdegmaya waxaan leeyahay marka formku wuxuu leeyahay method xaalad leeyahay
xaaladuna waxay la macno tahay post waa wax la soo intergaranayo waa post weeyaan oo waa muhiim post markuu la mid yahayna bracketyadii shaqooyinkii iyo waxyaalihii kale PHP-ga iyo wixii kale weeyaan meesha marka geeyaa okay waxaan la mid yahay action waa ficil weeye ficilkuna muxuu la mid yahay haddaan sheegay marka shaqada ficilka halka bracket ka intaas waa u furaya calaamada PHP waa u furaya PHP weeyaan waxaan ku qoray to PHP echo ay la mid tahay echo string xarigii meesha keenayo qoranayaa laakiin sanu hadda xariga ma baahni waxaan leeyahay echo oo kaliya echo markaan hadana waxaan la mid yahay HTML characters HTML special characters aan u baahanahay oo aan halka u soo sheegay markasta in xogtu ay ku noqoto string marka xarigii keen xarigii marka muxuu noqonayaa haddaan u sheegay marka xarig wuxuu noqonayaa server weeyaan serverkina wuxuu noqonayaa oo bracket PHP self ay noqonayaa PHP dash self ay noqonayaa iyo semicolonki aan ku xidhay waayo waa muhiim waayo shaqan furay halka markay hawshu taagan tahay dabcan semicolonki wax xidhay waayo hadalka sii socda halkana PHP waan soo furay PHP gaas inaan xidhay weeyaan marka maxaan leeyahay calaamatul si caadiga ah lagu xidhay aan intaas ka baxaya inta markaan ka baxo waxa kaliya ii haray waxa weeyaan in aan sii qoro farbaladii iyo swafji magacii iyo wixii aan qoraa marka kuwan baan ma ku qorayaa waan ku qorayaa sida caadiga ahayd okay waxaan leeyahay magaca leeyahay magacu marka wuxuu noqonayaa magacu wuxuu yahay waa input waa meel wax la dhigayo weeyaan typekiisu waxa weeyaan nooca uu noqonayaa waa text horta waa qoraal waayo wixii meesha qoraal baa la gelinayaa namekiisuna waxa weeyaan dii caadiga ahaydna waa name weeyaan oo variable-kii ayaan waafajinayaa waayo haddii kale wixii meesha error badan baa soo gelaya si uusan qoraaladii aysan isugu dhex yaacin oo wixii aysan isu dhex gelina waxaan kaga tagayaa PRPR oo aan kaga xidhayaa oo aan meel gaar ah ku gelinayaa waayo haddii kale wixii wuxuu noqonayaa wuu isku xidhmayaa weeyaan marka waa ka xidhaya PRPR baan kaga xidhayaa oo ah in uusan ku soo xadgudbin kan kale uusan ku soo xadgudbin marka enter baan leeyahay maxaa ku xiga marka emailka ku xiga emailka isaga maxaan u sheegayaa iska soo copy gareynta tan hadaad rabto waayo haddii kale shaqo dheer aynu qaadanaysaa copy ayaan leeyahay 2 3 soo baxanahay waayo haddii kale hadii 4 bil may u baahanahay 4 baan u baahanahay may 3 daab iska taa saasoo kale ba way halkan waxaan ka dhigayaa email baan ka dhigayaa email ayaan ka dhigayaa halkan email ayaan ka dhigayaa halkan wuxuu noqonayaa sida caadiga ahayd variable-kiisa uu noqonayaa oo ah email ka buu noqonayaa maxaa ku xiga website baa ku xiga Soomaa website-ka waxaad doontaa ka dhigan kartaa website baa ka dhigan kartaa laakiin halka waa inuu muhiim noqdo variable-kii magaciisa waa halka soo gelisaa oo ah website way isagana PRPR baan ku xidhayaa maxaa markay harsan waxa ii harsan commentiga ay harsan commentiga marka isagu wuxuu noqonayaa shaqo gaar noqonayaa waayo halkan waxa weeyaan waa space baa loo baahan yahay marka waa ka gidisnaanaya horta waxaan qorayaa comments weeyaan oo horta waa comments waxaan doonayaa commentiga soo ka kaliya ka dhigayaa sidoo kale ku xidhayaa commentiga marka muxuu leeyahay waan furayaa text area ayuu leeyahay text area way kala furay kan ban ka yarsi kan ayaan weeyaan intaas un baa masaxay laakiin name equal to magac ayuu leeyahay magacuna wuxuu leeyahay comments ayuu leeyahay comments waxaan soo gelinayaa waxa weeyaan waa variable-kii name comments-kaas leeyahay rowskiisa marka ka hadlay rowskiisa waxay noqon karaan ilaa iyo inta u dhaxaysa 5 meelahaas noqon karaan columnskiisa waxay noqonayaan columnskiisa waa muhiim waayo haddii kale wuxuu isku dhexyaa waa muhiim inaad qorto isagana columnskiisa waxaa loo soo gaabiyaa kulis baa loo soo gaabiyaa oo ah columns loo soo gaabiyo columns marka wuxuu noqonayaa 40 meelahaas ka noqonaya 40 gooda waa iska caadi weeyaan inta markaan qoro text area soo xidhaya dhag way xidhan yahay maxaa harsan waxa ii harsan gandarkii bay harsan gandarka see ka dhigaya marka isaga sida ma ka dhigaya gandar ayaan leeyahay gandarkana waxaan ku xidhayaa calaamadihi caadiga marka isaga maxaa loo baahan yahay isagu waa shaqo culus oo waayo dee waxaa loo baahan yahay dhibicda yar iyo dhibicda yar soo saarto marka dhibicda yar iyo laba saas suuq yaala marka aan rabin inaan soo saaro shaqaynta ka badan bay qaadanaysaa waxaan loo isticmaalaa tape radio-ga iyo waxyaalahaas kuween hore u soo qaadan loo isticmaalo marka maxaan leeyahay horta waa inputna hadduu yahay tape-kiisa waana meesha keenta tape-kiisa waa radio weeyaan
raadiyogana waxa loo isticmaalaa kuwan baa loo isticmaalaa macnaheedu waxa loo isticmaalaa waa muhiim marka inaad garataa weeyaan meeshana kii hore qaraab ma soo isticmaalay waa run waa qoraal laakiin sakan wuxuu noqonayaa wax doorasho waa raadiyo weeyaan iska luqadda PHP oo iska garanaysaan wuxuu la mid noqonayaa marka namekiisa magaca gender ayuu la mid noqonayaa genderkaasi wuxuu la sii mid noqonayaa value wuxuu la sii mid noqonayaa qiimihiisu muxuu yahay value qiimihiisa marka wanaag sheegto wuxuu noqonayaa caadiga female ayuu noqonayaa female ayuu noqonayaa waan saartaa waayo waxa weeyaan waa gabadhii okay halkana marka qoraalkii san u soo saarna marka maxaan sameeynaa qoraalkii waa dhigana marka waxaan leenahay female ama gabadh ayaan leenahay si Soomaaliga nooga dhigo caadiye gabadh baan leenahay gabadh markaan idhaahno waxa kaliya ka bixi karnaa iyadana waxa qortaa mailkii qor input markaa qorto type radio leedahay waa radio weeyaan namekuna waxa weeyaan waa gender oo ka siman yihiin value-guna waxa weeyaan value-guna waxa weeyaan mile oo ah ninkii halkana waxa leedahay waa nin baad leedahay halkana si uusan qoraalkii iyo wixii soo dhexyaacina sida caadiga maxaa ka baxaysa PR baa ka baxaysa maxaa haray submit-kii baa harsan marka submit-ka isaga maxaan leeyahay submit-kiisu iska fudud yahay input baan leeyahay type-kiisu wuxuu la mid yahay waa submit weeyaan isaga iska caadi saas isku qoraysa name-kiisu muxuu la mid yahay waa run waa isla mid weeyaan submit baa leedahay uu la mid yahay wax kale oo miyay jiraan value-giisa jira value-giisa marka waxaan leeyahay value-giisu wuxuu la mid yahay submit so waa iska suuqa error baa halka keenaya marka naga xiriirsiisay shirkadda halkiisana isagana PR waxa yarama iska bada isaga dad rabto waa kaas formkaasi wuxuu ka socdaa halka aad arkaysaan waayo marka hore waxaan soo furnay form baan soo furnay waa halka ku jira marka formkaasi waa muhiim in isaga soo xidho waayahay waxay noo hadhsan shaqada iyo inputkaas ay noo hadhsan marka inputka isagana waxaan sameynaynaa dabcan isaga waa inaan ka qaadano email bisoo kaliya hadana aanu dib PHP ugu furnay noqonaysa waayo shaqadiisa iska saasay way echo waxay la mid tahay isaga caadi waxaan ku qoraynaa waayahay echo waxay la mid tahay horta isaga iska yarayna waayo wax badan ku waaweyn hadii kale waxay isbisoo waxaad qortay baan ka dhignaa waxaad qortay oo ah tan hadhowteen soo baxday marka maxaan xirayaa HTML-kii caadiga ah ayaan xirayaa oo ay ku furnayd oo h2 oo xirayaa waayalkan waad arkaysaa inuu furan yahay si aad raadid waa inaad xidhaa waa khasab waxaad qortay ay leeyihiin okay hadalku waa sii socdaa marka postiga dhig marka echo ayaad leedahay echo wuxuu la mid yahay 9 wuxuu la mid yahay semicolon waa sii socdaa waayo waa khasab inaad sii gelisaa waa khalad waayo hadhowto PR-kii uu ka qaadaya string-kii xarigii uu ka qaldamaya marka xarigii hadii aad ku qaldamo wax muhiim ah marka waa inaad isku saxdaa marka echo name waa inaad taado oo ku saxdaa variable inaad ku saxdaa waayo hadii kale wixii sii waranaya laakiin ima ka u baahan tahay string-kii xarigii ima ka u baahan tahay oo ah inaad ku xidho farti inaysan isdhexgelin PR inaad ku xidhaa waxa ku xigay email-ka ku xigay marka waxaan leeyahay echo wuxuu la mid yahay dollar email iyo adalkii sii socda kan waxaan leeyahay echo ayaan leeyahay string ah PR waayahay wasoco waxa ku xiga website-ka ku xiga isagana echo ayaan leeyahay echo website ayaan leeyahay website sii socda hadalku echo PR ayaan leeyahay وسي سعودي سوون هذا الكواي ميت كستا وحو نقول يا سي سعودي إيكو وحو لمدي هاي كومنتس around $1 كومنتس لمدي هاي وسي سعودي سوون أنا مدي هذا الكواي سو إيكو وحو لمدي هاي PR لمدي هاي إيكو وحو لمدي هاي إيكو وحو لمدي هاي around $1 جندر لمدي هاي أنا مدي هذا سي سعودي وكنا حنقول قرية echo string حركي PR التامر كان قرأ وحكي لي هالسنة وحوي يعني أنا لغتي PHP بس كحلو وايد وحي عرفها حليه
علامة سؤال اللي هي أساسا حق بحرية أساسا لغة كحرية أنا سيدي عادي حاجة صرنا بودي ويقفرنا بودي كانوا بحرية حاجة صرنا وحي يقفرنا واللغة دي قبل تي قاصر وحي يقفر وكال قاصر marka inta soo qornay bilcawd waxaan qoranaynaa eegno control s ayaan leeyahay halkan baan tegayaa waska control garanayaa php gaan ku dhufanayaa php markaan ku dhufto last modified kii aan qoray waa kan kii faylkii ugu dambeeyay save garanay waa kan oo ah form.php waan eegno marka okay wuxuu yiri parse error syntax error unibax expected ha variable ba qaldan waxaan uu ka qaldan yahay line 23 aan eego marka line 23 maxaa ka qaldan line 23 ha intan baa qaldan halkan baa wax ka qaldan yihiin marka waa bracketyadii aan furnaan malaynayaa halkaas wax ka qaldan yihiin if way yahay waan furay bracket waan furay halkaas okay wax qaldan baa jira halka hadii aan furnay if line 23 ayaa wax ka qaldan yihiin waan muhiim halkaas leeyahay wax ka qaldan yihiin halkan maxaa ka qastan returns return data halkan baa qaldan okay english saa qaldan marka return okay save haddana wuxuu yiri line 26 baa haystaa yiri line 26 neegno line 26 meeshan ayaa error ka jira waayaha waa laba baalkii wax leeyihiin way halka horun hadana soo furnay kaasana xidhaya marka waa error baalkaasna ka jira runtii waa ka soo saaray waaye hadda error ma jiro bal aan eegno marka maxamuud google weeyaan com ila socota waxaan ahay wafarti dhaadheereed weeyaan baa saa uga tashay marka waxaan ahay oo ninkii isoo saari maayay waxbaa ka qaldan marka aan saxo halkan soo tag php farm gender sorry radio welcome marka internet waa ka soo saaray caadi soo saaray oo iska baalki weeyaan saamiya emailkeedu waxa weeyaan saamiya@gmail.com websitekeedu waxa weeyaan saamiya.com sida caadiga ahadna waxa weeyaan war waa talo iga qaat tusaale ahaan hadii saa tiraahdo waxay leeyahay gabadh baan hay leedahay halkan submitkii weeyaan wakaas wuxuu soo saaray saamiya@gmail.com war waa iga talo iga qaata iyaduna waa gabadh hadhowto xogtiisaasi ku imanaysaa oo kugu soo gaaraysaa iyadina halkaas isaga kusoo gaadho xogtii oo waxay imanaysaa qaybta serverka casharkan waa cashar aad iyo aad u xiiso badan laga faa'iideysto wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.